wafdigan uu hogaaminayay danjiraha dowladda federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Ambassador Jamal Maxamed Xasan ayaa booqasho waxa ay ku tageen xabsiga Shimolatewa ee magaalada Mombasa oo ay ku xiran yihiin ku dhawaad 100 maxaabiis Soomaali ah oo ku xukuman falal burcad badeednimo. xubnaha wafdiga ayaa waxaa ka mid ah qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya General Bashir Maxamed Jaamac Bashir Gobe, taliyaha xabsiyada ee dalka Kenya Isaya Ozogu, wasiirka cadaaladda ee maamulka Puntland Saalax Xabiib Jaamac, agaasimaha la dagaalanka burcad badeedda ee maamulkaas Cabdirasaaq Duceysane iyo xubno ka socday hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dambiyada ee magaceeda loo soo gaabiyo UNODC. danjira Jamal ayaa maxaabiista ka dhageystay warbixin la xiriirta xaaladda dhabta ah ee ay ku sugan yihiin, waxaana TV-ga qaranka la hadlay qaar ka mid ah maxaabiista la xukumay. xilliga ugu horreeyay saragna waxay noo sheegeen raggeena dhalinyarada Soomaaliyeed meeshan ku xiran oo barnaamijka badda ku eedeysan wixii xuquuqo anagu aan leenahay in ay ayagu qaabilsan yihiin oo ay ayagu diyaar noola yihiin bay hadda ka hor noo sheegeen. haddii aan u gudbo dhinaca dhibaatada meesha aan u qabno meeshan waxaan ugu haystaa dhibaatooyin kala bedelan. dadkan muddo badan bay meesha ku xiran yihiin, saabuun ay dharka ku dhaqdaan ma helaan, koolgeed ay ku cadaydaan ma helaan, dhar ay qabowga iyo dhaxanta ka galaan ma haystaan, koba ma helaan, wax xuquuqa oo ay ka helaan dhinacaas ma jirto. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Bashir Maxamed Jaamac iyo wasiirka cadaaladda ee maamulka Puntland Saalax Xabiib Jaamac oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa dadka la xukumay la wadaagay sida ay uga xun yihiin dhibaatada ku haysata gudaha xabsiga. halkan oo inaanu maanta oo iid ah idin la wadaagno maxaa dhacay shalay annagu horta Soomaaliya safar soo bilowna xali koodin halkan ma soo galay markii iideeyay daraadii man hawada ugu soo qaadan intii kalena idinka la dhamaysanayna insha Allah. waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinayaa saaxiibkayga ama maartay dhigayga dalka Kenya oo si fiican suuna hay'adihiisa iyo dalka noogu soo dhaweeyay. warku waa inuu iska ciriiri waqtina waa garan kartaan maantana ma aruurin karno dhammaan cabashooyinka qabtaan. hase yeeshee badanaa horta waxaad ka hadlaysaan waa war la qabo xiiso male. dhibkan waxaana keenay waa ognahay dhibka aad ku jirtaan, waa ognahay inaydan jirna iyo beer iyo raaxa aydan ku jirin. wax oo dhan waxa la ogahay waa kaliya wax wax loogu qaban karaa. idinkuna waa ogtihiin tabarteeda iyo tacbaanimadeeda wax kullina warka oo dhan wada sheegin. marka waxaas oo waxa wada ogtihiin waxaan rabaa inaan su'aal yar baadii taabato tiraadeen maxay dawladda Soomaaliya ictiraafsantay ma waxaan nahay burcad badeed ma waxaan nahay kalluumaysato mise dad arigood iska raacanayaan saas inaad tiraadeen baan u maleynayaa annaga kalluumaysataa nootii laakiin waan dareensanahay sida hore u yiri muxuu ahaa runtii taliyaha muxuu ahaa Bashir soo hor iyo generaalka weeye inaan janno ku jirin waa la ogyahay marka taa waa isla qabaa insha Allah dadaalkeena waxaan u weynimay way kulligeen safiirka noor booday insha Allah Abdullaahi Raado in laga shaqeeyo sifadii lagu soo wareejinaa dalkiina sida ehelkiina ku helaan in ku soo booqdaan xaasas waalid ilmo kulliin ku soo booqdaan access aad u yeelateen runtii waa dadaalka insha Allah ku jirna Abdullaahi Raado. intaasi kadib safiirka dowladda federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Ambassador Jamal Maxamed Xasan ayaa maxaabiista guddoonsiye deeq dhar ah oo ka koobneed shaarar, macaawisyo iyo funaanado kuwaas oo ugu talagalay inay uga qayb galaan damaashaadka Ciidul Adha, waxaana uu u ballan qaaday in goordhow uu arintooda wax ka qaban doono. idinku waxaan groupkii labaad soo booqdo xiriir qaxootiga tagnay idinkana waa idin nimaad waxay tusaysaa marka muhiimadda ay leedahay inaan idin nimaano oo aad idin dhageysano xuquuqdeena cabashooyinka noloshiina say tahay iyo sidii mustaqbalkiina aan uga tashan lahayn waxa sameyn lahayn waxaan u nimid waxa weeye inaan horta ogaano hadda inta noo sheegteen iyo wixii kale aan ogeeyna noo sheegtaan oo ay waxba naga qarin xaaladuna say tahay noo warantaan aan u nimid meesha dawooyinkii aan noo sheegteen ninkan xaaladiisa lugta laga gooyay idinka waxa meesha ugu xiran tihiin kulli waan qoranay waxaan ka hawlgalaynaa sida marka xuquuqdeena ku heli lahaydeen haday noqon lahayd in wadankiina saa ugu noqon lahaydeen waxyaalaha kale ee tabanaysaan marka halka ka baxdaan xaqiinii iyo arrimaha hadda ka hadlayseen gadaal baan isugu noqonaynaa qofka dadka bini'aadanka soo loo dhaqmo in la dhaqmo xaq u leeyahay. waa markii uu horeysay oo danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Ambassador Jamal Maxamed Xasan booqasho ku yimaado xabsiga Shimolatewa ee ku yaala magaalada Mombasa ee dalka Kenya. Umar Caaqil SNTV Mombasa.